doorka wasaaradda iyo shaqada la soo qabtay waxay nooga warramay wasiir xasan xaaji oo aanu 5 sano u dambeysay golaha wasiirada ku wada jirnay dhowrkii sano u dambeeyayna ama sanadkii u dambeeyay iyo xogay labadii ka shaqeynayay arrimaha cadaaladda iyo garsoorka intii horena gaashaandhigga joogay marka aad baan uga dheregsanahay shaqada wasaaradda ay haysay dhanka kale ee dastuurkana anaaba ayaamahan dambe gacanta ku sii hayay waxyaabahan wareejinaya maanta ayay ka mid tahay marka horta wasiirka iyo bahda agaasinka iyo dhammaan howlwadeennada waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo hawshii wacneed ay soo qabteen dhowr goorban wasaaradda imiyo xataa markaan dastuurka joogay wasaaradaha saameyn la rabo inay go'aan ka gaadhaan su'aalaha waaweyn ee dastuuriga waanu u tegi jirno waanu wada xaajoon jirnay iyaga iyo kuwa maamul goboleedyadaba marka arrinta u weyn aan ka wada shaqeyn jirnay waxaa ka mid ahayd waxa la yiraahdo judiciary model ama hanaanka garsoorka ee dalkana uu yeelanayo oo aad la isula soo dhadhaweeyay waxna ay in yaroon badnayn ay qabyo ka tahay waa dhardhaar dowladnimada caam ahaan sida caalamku u yaqaano dhowr shay bay ka kooban tahay waa xukuumadda iyo qaybta fulinta oo dhinaca waa sharci dejinta oo dhinaca iyo garsoorka oo la rabo inay isdheelitiraan oo ay dhammaantood la rabo inay u adeegaan sugidda badqabka iyo xuquuqda muwaadinka Soomaaliyeed horta dowladnimo waa intii uu hadlayay wasiirku uu ka hadlayay culimadu aragtida ay ka qabto dowladnimada iyo dastuurka waxaa maskaxdayda ku soo dhacay nin Soomaaliyeed oo gabiya ahaa Soomaalidu filosofaro iyo ma ilaahan jirin waxay dhageysan jirtay wadaadada iyo suugaan yahanada ayaa wuxuu rabaa inuu tarjumad ka bixiyo dowladdii laga helay inta la diriray nimankii colonizerska ahaa gumaystihii dowladnimadii laga hantiyay ee la qaatay ee Soomaalidu ay qaadatay gobonnimadii wuxuu ka filinayay cabiraya marka cabaarka bacdi malaa wuxuu islahaa wax walba oo ka maqanba qaranka samaysmay Soomaaliyeed baa ku keenaya gabay caana weeyo waxa la yiraahdaa bal maxaa miciinu ibaday ministerkan doortay marka wuxuu ka hadlayaa dowladnimadii wuxuu ka filinayay gabay marka meerisidiisa waxa ku jiray wuxuu leeyahay sidii baan manchaha ugu socdaa modern leedi horta gaadhiguba ka sugayay inuu lug baad dishay iyo isku xoolo daba joogay wuxuu islahaa waa lagu furudayn doonaa wuxuu yiri sidii baan martida caano qura ugu macsuumaa sidii baan martida caano qura ugu macsuumaa sidii baan macaluul iyo walba waxaas macaluul dishay aan u mudluubnahay yani ninkaasi lixdameeyadii hore weeye wuxuu rabaa inuu cabiro dawladdu wuxuu ka filanaya wuxuu rabaa inay daryeesho isaga iyo xoolihiisaba oo gaadiid iyo biyo u helo wuxuu rabaa inuu maqaadiiraha iyo nafaqa darrada iyo macaluusha ka badbaado wuxuu rabaa inuu cadaalad helo wuxuu leeyahay 2,000 nin ayuunba manfici dawladnimada helay inta yidii kalena waaba laga ootay buu leeyahay cadaalad darru tirsanaya markaa yani cabirkaas markaa bixiyay wuu noo sheegay wasiirku dawladuhu waxa loo aasaasaa inay xuquuqda muwaadinkana ilaaliyaan iyagana laga magan galo si dawladdii looga ammaan helo waa in dastuur la helo ilaa qof aan la soo dooran oo dastuur ilaalinayn qof aan ama la soo dooran ama dastuur ilaalinayn oo marka xukunka haya waxa suurtagal ah inuu ku tacadiyo dadkii sida la ajigeed waxa la isku afgartay in dastuurna la yeesho cadaaladna lagu dhaqmo waxaan rabaa marka inaan dul istaago sanadadan soo socda iyo dawladdan cusub ee dhalatay waxyaabaha marka xagga garsoorka iyo dastuurka la eegayo laga sugayo inay dhameystiraan mudane wasiir anigoo saaxiibkay xasan macallin aad ugu kalsoon inuu yahay qofkii ugu habboonaa ee cadaaladda iyo dastuurkaba lagu aamini lahaa iyo saaxiibadayda kale oo ay ka mid tahay Maymuuna iyo Axmed oo labadoodaba aanu ka soo wada shaqeynay siyaabo kala duwan arrimaha la xiriira dastuurka iyo dawladnimadaba inay run ahaantii halkii wasiirku uu kaga tagay ka soo wari doonaan horta awalan waxa la idinka rabaa hanaan cadaaladeed oo dhammaan daneeyaasha siyaasadeed inta isku afgarteen la meel mariyo waa hanaanka garsoorka in la helo
قيبت الدستور كان وذلك دون توزير ورتشيدي مدرس السعودي وذا حاجوت كإن بدل لبوتشري وحيتلا قصة أرتي سؤال طبعا سؤالات كوبا إن جواب له هلا وحكم إذا مقام كمقالة مقدشو وحكم إذا وكما موادين كالصومالية يا citizen of Somalia سؤال سوى تاجن تهي وحكم إذا أود غيب سجى article كمقولة ككونتني أفراد وحكم إذا خيرات وذاك أفرتني أفراد وحكم إذا حنانك دقالها دلك أما رمان fiscal federalism كليرا الله فري السنة وحكم إذا الصومال سدبي يسود دورنا يسا حيده هذا أمن قنصي وكانية والسؤال وين وأن فرضين وزير واحد إن بدن أركض دونتها صومالي ذو كله وزير ودستور كم حد ولا ميستريوي سيرو هو يهبوك أدوق القرنيس أيان دروين ويه إن دستور كون نقضه وح شخص اللي قفشه دستور كالصوماليين وشيء قف والبا أو الصوماليين للرباء أركتديس إنه كده مقطع ونكون قناعسين وحنا أوجد دون تهوش المكان ده حاجة شو وحلا يرجع أمدا وين الدلكن يعني هل روح أجورين أو أنا جوان كجاري هلاق قول يبى اللي يريو هل إسكو أفكرته سؤالها وين وأنا مهم معمول قبل ده إيه ديوجا كلا دوّن الصوماليين سري إسوكلا قيبيا أو أدوكتهين إلا تحجليه أو قدام بين له وحقف ولا بقى وسليه ورملاتهم ولا نولان كرته لكن هدي أي صوب هذا واحد عكررا أما أي قيبها بالشدة أي واركان عدالة دره وحنا قاعدة يواري ما عندهم مركز وزير رباطية دي ورتشية دي يدوديه يجو تفترن أو فربنا بلغو وريشين دونا وحنسأل دقول نية سنة هاي وزير وزير ردوا وح أي أقون دركسن أوليهين دينتي دولة نمدي يقرن سيلو يقللا الله أركا سوما ذو حربته وحي يدون كدودين إن إسكا قرط ما دعي صوح لإسكا قرا أو دبل يسوق دلا وحين نكرر شوي النهاي سؤالها طبعا كاه كوبان أورسن جواب كليه وباهن لكن وباهن أقبلات ودر أقل يسو تناسل والسؤالها للربو إن يسود ويان بريكا مالين وده حاجوت كالصومال لأن يمرك اللي قليه إن دستور كالصوماليين قفل بالصومالية أما سيلع هتشوجو أما هتشوجو ماشى اللي يرادو كودا جسيرة ده يعني هالكاتشوب بلانكويا ليه مركو دستور كاساو إيجو كنية سماده وحن كجب حياة حداد مقاشان ويلل يهبل الصوماليات بعضها يسقو قاضية أو دول الآن ولجود أرق أو دين تاي كل رقميان عن لجاجد رقمين أو دقن كود أنو كتشرين أو أهل أوتشوجين بيو صعدان هل شيء بيبادئ جوبيا عدالة بيبادئ جوبيا وحيبادئ جوبيا دستور أيكم مجان جلان وحيبادئ جوبيا مال أي كشقيستان waxa kale oo ay u safreen ma jirto intii in dhulkan laga helo waxa furo u ah in dastuur la isku afgarto in dimuqraadiyad la isku doorto oo aan la ismuquunin iyo in cadaalad la helo weelka marka la helo ba xooluhu inoo dhaqmayaan sektarada kale inoo sameeyaan anigu aad baan uga soo horjeeda aragtida oranaysa dhaqaalaha kaliya focuska hal la saaro hal xogaa hal warshadiyo hal dhiso haddii dhismayaal waxayna tarayaan dawladdii kacaanka ee dalka ka jiri jirtay wax ka dhismayaal badani ma jirin wax ka warshado badani ma jirin mareerley iyo ito iyo tii kabka iyo tii hargaha iyo saamaha iyo tii xoolaha dhoofinaysa kismaayo iyo tii sibirka berbera iyo tii tamaandhada iyo tii baastada iyo tii warshaduhu inaguma yaray dhismayaalna inaguma yaray وزارة والبا إنتان سو غوري إيه إنتان سو أجاب أيه ده أولي شيء وحوارة إيه أمدي أي شيء كدم بوجود بيسا والشروع ده إيه وحيابها السياسة السلكة أودي جاية دستور حكومي دي هلا سو أفكرت دلالك قار مددر العراق ولود الدشية دستور كذي حدنا دوان واتي عندي مضاغري ليبيا ضد الدستور جمانه والبوي سعتها لأن كلا حدنا نوديجو
soomaaliya dalal fara badan oo deris ay la tahay way ka horeysaa oo waxay kaga horeysaa waxa la isla afgartay warbal wixiina aynu ka tashanno xoog iyo ismuquunin iyo waxa hadda cidho u baxsan mayso dooda dastuurku markaa wayna jiitamaysaa wayna adag tahay waana wax facila ka fac ummadda saameyn doona soomaalidu ha u dhugato dastuurkeeda waxa gelaya oo doodii ahayd gaala qorata iyo Ethiopia maxay ahayd meeshii Kenya lagu soo qoray dawladnimadu carta lagu soo aasaasay embagaati bay ka timi la isla soo dhaaf dawladnimada maanta xamar bay taallaa inaga agteena taallaa Soomaali baa gacanta ku haysata faham iyo fikir ha lagu doodo si caafimaad qabta qof walba Soomaaliyeedna ka fikiro waxa uu naftiisa la rabo inuu walaalkiina u ogolaado waxaan la yiraahdo winner takes all ama inaan dhammaan hal qof wada qaato inama anfacdo wax la yiraahdo cadaalad waaya iyo hablaba sida cawsha kale yaa insha Allah wasaaradda isku keen soo celin lahayd tan ay noqonaysaa wal mahadsantii